بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحماد سكله ومهد الأصول نعطي الله سبحانه وتعالى. بعد الحمد لله وحن آدي أدو مهد علينا وعلى محسنين تأها مروي بالنوحرن عاوية أغنطة أنت سكدب سيدار كيسين وحماد الجونا حرمتي دكسي القرآن الكريم أغنطة المستقيم وعن ما تصبوا غني ما شاء الله أنت سو عرور وأغنى يا خبرة إني قبنا عيان جديدة ما تعاون نمدي هذه لقى صوت بوقشة ما دام بشر بركيسان أي رمضان إنه سودو ده هاي أنا قلنا كهيئة المستقيم أهان أن معلمها كل جهني قرشيه أفرنت قوسك عوانت إيدا يرتاه سيد حسن رسول الله في وحن سميني ني قوسك عوانت إيدا يرتاه سكولك أن أروت عدلت واردين تودا وحن سميني ني أفرن iyo sidoo kale ciidsiin ciidihii ku dhex jiray sanadadaas sanadkii uu dambeeyay hadda ramadaankii la soo dhaafay ilaa maxaan ku dhahay 300 qoys aan afar u sameeynay sida dareemaysiin sanad waliba way kordhaysaa tirada sidaas oo taadana wixii kaliya markaas aan sameeynay waa iskuulkii agoonta dhiganaysa waalidiintooda sanadka marka wax badan isbedelay wax badan way soo kordheen waxaan ku dhahay wax walbana way waxaan ku dhahay la wajibaalmeen dugsiga agoonta arkaysiin agoontan joogto waxaa jiro ayagana qoysaskii maxaan ku dhahay ka dambeeyay oo runtii aan rabno inaan sanadkan ku soo darno afurintii in maxaan ku dhahay sanadkan xoog nala saaraan sidii 500 qoys aan afur ugu sameyn lahayn runtii waa wax weyn inaad maxaan ku dhahay qoys agoona waliba ama danyar ah aad afuriso. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira wabacd. awalan allah subxaanahu watacaala ay mahad u sugnaatay halkaan iskuwa keenay ilaahay subxaanahu watacaala naga yeelay dad muslimiin ah. nicmooyinka alle subxaanahu watacaala aad ayay u fara badan yihiin haddaan doonno inaan koobno oon tirinana ma tiri karno soo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku sheegay waa bil aad u fadli badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay in la xiro albaabaha naarta shayaadiintana la xirxiro jannadana la furo. qof walbo muslimana waxaa u wanaagsan inuu ka faa'iidaysto oo uga faa'iidaysto acmaasha wanaagsan waxaa ka mid ah sadaqada ayadoo sadaqada haddana waa sii kala fadli badan tahay soo nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam sadaqada jaariyada ah qofka muslimka u soconayso nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka ibnu aadanka haddoo dhinto camalkiisa wuu go'ayaa ilaa 3 maahani waxaa ka mid ahaa 3daasi sadaqatun jaariya sadaqo u soconaysa qofka muslimka sadaqada u soconaysa qofka muslimka ah waxay anfacaysaa intuu nool yahay iyo markuu dhinto kadib intaba way anfacaysaa. marka ummadda muslimiinta ah ee ilaahay subxaanahu watacaala awoodda u siiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala hantida siiyey maalka waxaa u wanaagsan qof walbo muslima inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka faa'iidaysto. bishaasi waa fursad ma oga inuu gaari doono bisha dambe ramadaan inuu gaari doono qofkii oo gaarsiiyo ilaahay subxaanahu watacaala. imise qof oo nala soomo bishii hore ramadaan sanadkii hore sanadkan soo gaarin waa fara badan yihiin. qof xanuunsan qofaa fursad u haysanin fursadda marka waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto. alxamdulillahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وحلل وحي خير وفضل
oo soonka ku saabsan akhuuna sheekh cabdiqaadir ayaa noo faa'iideeyey waddanka abaaraa ka jirto haraadaa ka jiro oonaa ka jiro rasuulkeenu wuxuu dhahay man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi اddunyaa nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama qofkii mu'min oo dhibaataysan qofkii dhibaatada ka qaado kurbada aakhiro ilaahay ka qaadaa dadkana maqlaayo ama fariintiina ay soo gaarto 500 oo qoys ah oo waddanka alxamdulillah haddana dhib badan ka jiro cariir badan iyo culays badan iska jiro inay nagu garab istaagaan hay-adda almustaqim aygana ilaahay waxaan ka baryana ilaahay dembigooda dhaafo inuu alxamdulillah maxaa yeelay dadkii hadduu istaagay dadkan oo masaakiintan in la garab istaago wax la siiyo dal iyo dibad ka istaagay ayagana maanta ajirkooda wax la soo koobi kara ma aha bal insha allah ilaahay waxaan ka baryana dhammaanteynii inaan u garab istaagno